ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa waxay howlgal ku gaareen deegaanka Qooxle oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana u dhow degmada Aadayabaal oo iyadoo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe halkaas waxa ku yaala saldhigga ugu weyn oo dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin ciidamadan ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo kal hore dagaal adag ay kula galeen Al-Shabaab deegaanka Qooxle ayaa wuxuu kamid yahay deegaanada ugu muhiimsan ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya howlgalka maanta ay ku gaareen saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee howlgalka ku gaaray deegaanka Qooxle ayaa waxay sheegeen inay Al-Shabaab ay doonayaan inay ka saaraan guud ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan isla markaana howlgalada ay sii kordhi doonaan ciidanka dawladda oo garab iyo gaashaanka helaya kuwa deegaanka ee Macawisley ayaa doorkay bilay ugu dambeeyay waxay laba jibaareen howlgalada ay ku baacsanayaan kooxda shabaab isla markaana ay ka sameynayaan deegaanada ka tirsan gobolada Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kale wararka ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in hakadu ku yimid howlgaladii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ka wadeen deegaanka masjidka Cali Gaduud dhawaan halkaas waxa ka dhacay duqeyn ay geeseen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga oo si toos ah u duqeeya xarumo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka masjidka Cali Gaduud wararka ka imaanaya masjidka Cali Gaduud waxay warinayaan in labada dhinac ay joogaan banaanka deegaanka sidoo kaleetana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya aysan wali u suura galin in si buuxda deegaanka ula wareegaan waxaana jirta in howlgalka ka socda deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe si gaar ah deegaanka masjidka Cali Gaduud oo si weyn isha loogu hayay isbedel oo ku yimid kadib markii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya howlgalka ay kuwa kadib markii ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay u suura gali weysay inay si fudud ay ula wareegaan deegaanka masjidka Cali Gaduud isku soo wada duub deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe ayaa waxa ka soconaya howlgalada ay wadaan ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka ee Macawisleyda kuwaas oo kaga soo horjeedaan dagaalamayaasha Al-Shabaab howlgaladan oo ay wadaan ciidamada dawladda waxa ku lamaanan duqeymaha diyaaradaha ay geesanayaan si gaar ah diyaaradaha dawladda Turkiga oo dhanka cirka duqeyn ugu geesanaya xarumaha iyo sidoo kale saldhigyada ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee wali ku sugan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaano kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe